For years, life in Ethiopia's Somali region was marked with uncertainty. Communities in Gursum, Kebribaya and Degabur walk each day not knowing if the rains would come or if the drought would wipe out what little they had. For decades, drought and poverty were constant shadows. But today, a new chapter is being written. Through Productive Safety Net Program, PSNP Phase 5, a quiet revolution of hope, dignity and hard-won resilience is slowly taking shape. مدة 8 سنة أيام كنت شغال مشروع مدة بدن أيام مارتي عيال أنا هنتهي سنة الدن لي أنكو صدقي مشار بوئها إلا أي حد مارتي نلاش يدو حبنا قبل لي كدبنا شقة أبوركي ضدكي قيبته أهل اللي فودي أيام كنت شري وأنا بانكو باللعبي وأنا كهدنا ريان كرقي ريه هدنا ويس دلين الحمد لله رب العالمين ريه حافظ أيام مالها وحروا وين ويها يستان marka alxamdulillah rabbil alamin noloshana kor baa soo qoys xaafad waxaan nahay maanta xoolo le baan nahay oo ari dareersanaysi adduunyo marka mashruucaasi anaga aad iyo aad buu mahadsan yahay mashruuca lacag la siiyay 17 maalinta aan hal mar leeyahay 17 waxa siistay faraasi meerad aan hagaajistay si fiican baan uga ganacsaday iminkana 40 kursi iyo miisaskoodiga ay yaala jibis baan ku sameeyaa For Jawahir, the project support was not just cash, it was a seed she planted with courage and watered with determination, watching it grow into a future for her family. Alhamdulillah waan ku fiicanahay hadda qaar baa isoo qalin jabiyay kuwa kale way ku jiraan marka shaqadii halkii waan ka wadaa aad baan ugu fiicanahay. While Jawahir and Ardo built their businesses from scratch, thanks to the money they have received, others like 50-year-old Jimali Abdi turned to the earth. Isku filaanshaan ka gaarnay oo waxaan ku beernay man carruurta waxbay ku baratay waxbay noo baratay wixii ay u baahdaan oo dhan macnaha beertaas aan qodanay baan ka helaa oo ciyaalku wixii kasta ama dhar ha noqoto ama cuntadooda ha noqoto ama wixii lacag ah kii quraan dhigtana macnaha lacagtiisa noqoto waxa soo dhan waxaan ka helaa macnaha dalaga aan beeranay PSNP aan inoo sameeyay macnaha halka ku gaarnay. PSNP 5 program is more than aid. It builds resilience through 4 pillars which include safety net transfer, which provide immediate support via public works and direct assistance, climate smart public works, which help in conserving water and rehabilitating watersheds to protect the environment, livelihood support, which helps families diversify income through business training and the Big Push initiative. Finally, institutional and climate mainstreaming integrates climate risks into planning while strengthening monitoring and capacity for long-term sustainability. Together, they are turning dependence into dignity and self-reliance. شخصي أهان والله أفر يلا باتنكم بقول سجاشن يلا با روح ويي أو ديجانتا سديد كون صدق بقول سجاشن يكو قيس قبل حوكستدو وكل بيا يلا باتنكم يشان يطبان روح ويي أو ديجانتا تضوا كون شام بقول طبان يكو قيس إن قليان ودينتو أما BDSكو ولباتن بقول تضواتن يتضوا روح oo dhiganta 880 qoys waxa qoysaska iyaga ah qalin jabin waxa sameeyay hadda maadaama mashruucu soo dhamaanayo 1300 oo qoys si guud mashruucu wuxuu socdaa muddo 5 sano tirada shaqaalaha mashruucu waa 12 tirada ka faa'iideystayaasha degmada si guud waa ku 23520 qof weeye si guud lacag ahaan waxa gashay ka faa'iideystayaasha mashruuca markaan si guud 5 sano soo dhafano waa 520 milyan 954,890 bir baa si guud u gashay. The Productive Safety Net program has helped in restoring lands that have been destroyed by floods, making it easy for grazing crops and protection against future shocks. It has also introduced water harvesting, nurseries, greenhouses and construction of dams and weirs to help communities easily practice crop irrigation across the year,
significantly increasing their food production. In addition, the program offers their beneficiaries an opportunity to graduate from poverty to self-reliance. berigi hore hooyadii BSMB ka shaqaysan jirtay oo gacanta BSMB da sugaysay oo ama beeraha wax ka sugaysay baan ahaa intaan imika mashruucan aan ku soo biiray tababaro badanna waan qaadanay sida wax loo kaydsado wax meel loo dhigto bankiyaha wax looga amaado maxaa dhacday shaqada loo shaqaysto gebi waa tababaraan qaadanay tababaradii kadib aad baan uga faa'iideysanoo faa'iidadana imika shaqadan aan imika gacanta ku hayaba taan baan ka shaqaystay hadda bakhaar baan haystaa anigu alaabto dhan way taalaa qalabkii oo dhan way taalaa hadda wax aan ilaahay uga baahanay mooy aadamaha wax saasan uga baahanay ma jiro marka inaan hadda wixii anigu aan qaadan jiray aadamaha baahan ku wareejiyo ayaan diyaar u ahay ganacsado weyn inaan noqdaan doonayaa bakhaarkayga aan soo buuxsado marka aan ku ganacsado imikana waan ku ganacsadaa. This graduation is not just an exit from a program. It is a passing of the torch. The transformation extends beyond homes and markets, healing the very land that sustains them. From Dagabur, Gebribaya, and Gursum, the story is shifting. waxay dul istaagtaa oo ay daba gashaa qaabka ay lacagahaas u baxeen qaabka ay u fuleen ilaa meesha u dambaysa ay ka gaarayso waxaan u arkaa mashruucan inuu wax badan ka qabtay dhinacyo badan dhinacyahaas oo ay ka mid yihiin taageerayaasha danyarta dadka deegaanka danyarta ah isagoo taageero toos ah siiya macaamiisha aan kor ku soo xusay wuxuu sidoo kale mashruucu barikitaara ama uu taageero toos ah siiyey dadka la yiraahdo livelihoodka tusaale ahaan degmada Dhagaxbuur waxay livelihoodka ka koobnaa 1300 oo qoys 1300 qoys 1040 qoys waxay ahaayeen dad la siiyey deyn halka ay inta kala ahaayeen dad macnaha deeq la siiyey. PSNP 5 did not just deliver help. It unlocked potential. It turned vulnerability into strength and recipients into role models, targeting one farmer, one family, and one community at a time.